وعنا wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa ay ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni xaqiiqa raadis qodobadan ku soo qaadanayna waxaa kamid ah gudoomiyaha ONLF Cabdiraxmaan Maaday oo mar dhaway toolo u ku citimay dhinaca wadamada reer galbeedka ee reer Yurub iyo Mareykanka waxa jira shir weyne haatan lagaga tashanaya baleeyay aayaha Itoobiya iyo sidii markaasi loo sameeyay la xukuumad loo dhan yahay oo haatan ololahaasi uu ka bilaabmay xagga reer galbeedka oo markaa lagu kulmayo ilaa 10 urur siyaasadeed ama xisbi iyo markaasi dhammaan dhinacyada kala duwan ee siyaasiyiinta iyo waxgaradka Itoobiya oo dhan oo shir weyne lagu qabanayo wadamada reer galbeedka haddaba arrintaas waxaynu eegi doonaa Soomaalidu doorka ay ka ciyaarayso iyo qaybgalka ka qaybgalaya Cabdiraxmaan shirkaasi iyo waliba saameynta ku yeelan doona dowladda deegaanka Soomaalida maadaama la yiri Itoobiya dagaaladu ay haatan ka holcayaan qodobo kale ayaan ku fiirsan doonaa ku soo dhawaada barnaamijka waagaag aynu ku bilowna barnaamijka waxa maanta mar dhaway toole ka kicitimay magaalada Jijigana ka dhaqaajiyay gudoomiyaha ururka ONLF Cabdiraxmaan Maaday waxaana uu ka citimay dhinaca iyo wadamada reer galbeedka Cabdiraxmaan Maaday ayaa sheegay markaasi in safarkiisu uu yahay inuu ka qayb galayo shir weyne loo qabanayo markaasi dhammaan dhinacyada xisbiyada kala duwan iyo marka ururada iyo aqoon-yahanada Itoobiya oo dhan kaasi oo waxa la yiri lagaga tashanaya aayaha iyo mustaqbalka Itoobiya sida uu noqonayo Cabdiraxmaan Maaday waxa uu sheegay warbaahinta in uu sababta uu tagaya ay tahay si uu golaha u fariisto markaa lagu jeexjeexayo ama lagu qorsheynayo mustaqbalka iyo aayaha Itoobiya waxaanu sheegay markaa in ay tahay muhiimadu in Soomaalida la siiyo markaa doorkooda inay ka qayb qaataan siyaasadda Itoobiya iyo golaha looga arriminayo meel kasta oo ka dhacayaba sidoo kale markaa isbedelada socdana in ay Soomaalidu ka muuqato in ay tahay ay waajib tahay taasi oo ay tahay haatan waxa la yiri dadka siyaasadda falaqay ay ku sheegayaan arrintan mid lagaga tashanayo xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed sidii bedelkeeda loo keeni lahaa waxa la sheegay badi in ay soo qabanqaabiyeen shirkan lagu qabanayo reer galbeedka dhinaca axmaarada siyaasiyiinta axmaarada ugu waaweyn iyo saameynta leh iyo warbaahintooda iyo dhinaca kale siyaasiyiinta Tigreega iyo marka aqoon-yahanadooda ayaa haatan horkacaya baleeyay shirkaasi marka waxa uu eegtahay haatan mid min dhal yeelan kara sanadkii hore shirarkii la qabanayay oo dhani marka dhinac buu ka dheeliyay waayo axmaaro waxa ay gebiyadaba taageersanayd xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy laakiin haatan axmaaradii waa laga reebay Abiy oo moogta way ka hadheen waa sida cad ee runta muuqata runta la isku sheego in yar oo moogta kooxaha loo yaqaano wallada oo markaa uu ka mid yahay Xasan Karaama iyo dan yar faano oo moogtay dhinaca walla oo kaliya ta ayaa taageersan Abiy laakiin axmaaradii Gojam iyo Gondar joogtay iyo moogtay dhinaca Shiwa iyo moogtay qurba joogtoodiiba warbaahintoodii baad ka arkaysaa si uu hadlaya baxalay 380 iyo 360 waxay sheegeen dagaal dan inuu ma haba yiraahdeen wada hadal nabadeed iyo moogtay xal kale hal la keeno sidii aad arkayseen warbaahintoodii taasi waxay inoo muujinaysaa marka axmaar oo dhamaatan in ay taageersantahay isbedel in la sameeyo wadamada reer galbeedkuna way la socdaan waxa la doonayaa marka in shir weyne qaran Itoobiya loo sameeyo baa la yiri Cabdiraxmaan Maaday waxa uu dhinaca doorka ay Soomaalidu ku lahaydna haatan uu ka muuqanaya golahaasi oo waan ka qayb galaynaa buu yiri si isbedel Itoobiya loogu sameyn lahaa ee xal loogu keeni lahaa haddaba dadka kale siyaasadda falanqeeya qaarkood waxa ay sheegayaan oo ay dhaliilayaan arrintaasi oo ay leeyihiin ONLF waxa laga doonayay in xagga madax banaanida u doodo ay yiraahdeen oo moogtay wadanka DDS ay madax banaani u qaadan lahayd ay markaasi doorkeeda ka ciyaarto laakiin ma ahayn bay leeyihiin in kolba koox ay u ololeyso haddii Mustafa Cagjar u ololeynayo dhinacan Abiy iyo moogtay kooxyo axmaareed raacsan kooxdii ONLF inay markaa kuwa ka soo horjeeda iyo Tigreega raacdo ma ahayn in ay mabda kala qaadatay ahayd bay qaarkood ku doodayaan adigu si kasta ha ahaatee haatan waxa la sheegayaa xitaa Cabdiraxmaan Maaday iyo Mustafa Cagjar haatan way heshiiyeen kulankii waa ku kulmay barnaamij horan oo kaga hadalay kulanka ay kulmeen Cabdiraxmaan Maaday iyo Mustafa Cagjar waxa ay ku heshiiyeen baa la yiri markaa in haatan isbedelada socda ee Itoobiya marka laga qayb qaato oo Mustafa Cagjar iyo axmaaradu waa saaxiib
qorshaha isbedelkeedna waxa wada baa la yidhi axmaaro oo Tigray la saaxiibtay sidaa darteed shirka dibadda lagu qabanayo ay ka tashiga loo bixiyay Ethiopia waa mid la doonayo Abiy markaasi afka ciidda loogu daro xukuumaddiisa oo xukuumad kale loo dhisi lahaa baa la yidhi laakiin aduu sid calaa kulli xaal haatan kooxaha dhexdhexaadka aanu ku jiraaye waxaan oran lahaa oo moogtahay dee sidii wacan ee moogtahay ku jirta nabadda iyo xasiloonidii wada jirka ummadda deegaanka Soomaalidu inay dee kulli iyagu ka tashadaan iyaga ayay u taallaa waad ku saxsantihiin waad ku qaldantihiin midna go'aan kama gaari karno iyaga moogtahay siyaasiyiintii waddanka maamulaya mar haddii mucaaridkoogii iyo Cabdiraxmaan Maaday iyo Mustafa Cajar ay kulmeen wixii isku afgarteen dee halkaas uu tagana markaasi taasi dhib uma arko laakiinse qof walba dee fikirkiisa uu ka dhiiban karaa barnaamijkan xaq raasi dadku ku dhayaatay kulanteena dambe nabadgelyo